waxaan ahaa aasaasihii labaad axmed siinaayo ku weheliyey iyo galeelidii xisbigan ballaadhan ee labada muddaxileed ku guulaystay hoggaanka dalka. xisbigaas wuxuu ahaa xisbi ballaadhan, hogaamiye weyni uu garwadeen ka yahay, la isku wado darafyada iyo dhinacyada aragtiyaha kala duwan. hase yeeshee maanta waxay uun muujinaysaa tallaabadan dareenkii jiray ee horena aanu tilmaamay ee ahaa in hoggaankii uu xisbiga kulmiye la ambaday hoggaankii dalka, isla markaana xisbiga kulmiye uu noqday shabad kudkude iyo qanin buuxiyey. intaasun bay shacbiga u muujinaysaa. aniguna dee hore aan u ogaayo nina wuxuu og yahay waxba ma yeelo. maxamuudow, shacab badanna waxay isweydiinayaan hoggaanka xisbiga iyo adiga kiina ambaday, maxaad kaga jawaabaysaa? anigu dee cidda xilka haysay aniga ma ahayn. anigu dee xubin xisbiga ka mida baan ahaa. muxuu ahaa horena maanta edegiisa waa la iiga saaray oo golii dhaxaa la iga saaray, fulinti baa la iga saaray. nin xisbiga marti ku noqon karo oo xerada xubnaha dadka caadiga joogi karana ma ahayna dee nin siyaasiyo ballaadhan oo weyn baan ahaa oo guushii xisbiga kulmiyana buddhig u ahaa. marka anigu dee muxuu ahayey ma ambane cidda ambatay shacbiguna waa og yahay, bulshada somalilandna waa og. maxamuudow, xisbiga muddooyinkii hore marka laga soo gudbo intii xukuumaddan cusub ay talada haysay, shirarkiisa iyo ka qaybgelkiisa dadku kuguma dhex arkaynin. intii ka dambaysay siiba ololihii doorashadii baarlamaankana dadku waxay sheegayaan in aad garab siinaysay xisbiga mucaaridka ah, adigoo xisbigii uu kulmiye talada hayana ku jira. imika u dambaysayna inay wada hadal idiin socdeen xisbiga wadaniba ayaa jirtay oo la sheegayaa. marka waxaasoo dhammi miyaana ahayn inaad xisbigaanad ku soo dhowaanba dee iyaguna ay saxaaxa u raaciyeen? anigu iyo xubno badan oo haldoorkii waaweynaa ee xisbiga kulmiye ahaa isku aragti iyo isku mowqif baanu ka nahay hoggaanka dalka iyo xisbiga kulmiye. tallaabooyinkaa aanu qaadnayna dan baanu u arkaynay, sida arrintii baarlamanka oo kale. danta qarankaanu inay ku jirto sidaa u arkaynay, maadaama taladii qaranku xumaatay, xisbiga yagiina ku fashilmay hoggaamintii dalka, in check and balance-ku aanu naga xumaan oo golaha wakiilada hoggaankiisu xisbigeeda mucaaradka laakiin danta xisbiga kulmiye may ahayn soo maaha? danta qarankaanu u arkaynay, wax walba danta qarankaa ka horeysa. annaguna dee xaq baan u lahayn aragtidayada. marka maxamuudow ma in aad ka shaqayso guusha xisbiga aad ka tirsanayd ayaad leedahay xaq baan u lahaa? waxaan ka shaqaynaya guusha qaranka. waxaan aaminsanahay taladii ugu fiicnayd inay ahayd tallaabadii aanu qaadanay shir guddoonka baarlamaanka. xisbiga iyo dantiisuna sidan bay ku jirtay. marka annagu garabkayagaasi waxaanu u aragnaa maanta waxa halkaa ka socda, qaranka ka socda iyo waxa xisbiga iyaga dhexdiisa ka socdaba waxay ka markhaati furaysaa uun halkudhigayagii ahaa war muuse waa kaa, kulmiyana waa kaa. maanta ay ka talinayaan buuni iyo rag la midahoo shalay xisbiga ku soo biiray oo aan u soo dhabarjabin, hoggaan aan dulqaad iyo dadwad lahayn, hoggaan aan aragtiyaa ka soo horjeeda dhegaysanayn. cidinooma yeedhin ilaa iyo intaanu wax tabanaynayna cidinama odhan war maxaad tabanaysaan iyo maxaad joojinaysaan iyo balkaalay dhaqanna kulmiyo ma ahayn waxaas. maxamuudow, haatan dhinaca xisbiga kulmiye markaynu ka hadlayno, waraaqdaasina ka soo baxday, waxaa soo taxan oo dhanna aad sheegtay, adiga go-aankaagu muxuu yahay? markaa maxaa ku xiga? aniga go-aankaygu waxa weeye waxaan oday u ahay garab dhan oo xisbiga kulmiye ka tirsan, oo haldoor leh, oo siyaasiyiin leh, oo jabaabiirtii iyo qamaamuurtii iyo qoorweyntii xisbiga ah. kuwaas baan wada tashanaynaa. waxaan leeyahay dadka taageerayaashayada ahna waxaa maqli doontaan go'aamo muhiim ah oo arrimahaas aanu kaga falcelin doono.